أنا من سنة هاي إني تاي طلابات مقلة وكنت لابستين وحول با وحجنا يا أمانة ذا الشعب كان صومالية نقول قبان إني سي أتكاتو وحنا من سنة إني تاي طلاب حقلة دلك دولة نمذا قرن نمذا يضد نمذا صومالية نقول أكسن وحمو قتمر كإن أي bangiga iyo wasaaraddu qaadeen talaabooyin dhiiri gelinaya dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan aad u jeclaan lahaa in hawshan aad qabateen in laga sii shaqeeyo in lagu faafiyo dhammaan hay'adaha dalka oo dhan inaanay ku koobnaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe muhiimaddu marka waxa ay tahay sida wasaaradda maaliyadda iyo bangigu ay u wada shaqeeyaan waa muhiim in wasaaradaha kale oo dhan oo dalka iyo wasaaradda maaliyadda iyo nidaamka wasaaradda maaliyaddu ay bangiga u keentay in looga wada shaqeeyo sababtu waxay tahay qofka Soomaaliyeed oo dawladda u shaqeeya xuquuq ku leeyahay si uu xuquuqdiisa u helo bil walba markay bishu dhamaato waa inuu mushaar helo mushaar si uu helo waa in amaanada loo dhiibaan xajin karnaa qof walba oo ganacsada oo canshuur bixiyana waxa uu rabaa inuu og yahay canshuurtii uu bixiyay meesha uu ku bixiyay qof walba Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliyeed ay adeeg u tahayna wuxuu rabaa adeeg inuu helo saddexdaas shayba waxay ku xiran yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bangiga sida ay wada shaqeeyaan nidaamkan markay dalka ka jira idinka hormuud ah laakiin hormuudkaas wuxuu ku saleysan yahay dadku inay aamini karaan shacabka Soomaaliyeed haddii warqada la isdaba wada maanta oo dhan aan la ogeyn cidda haysata la yiraahdo warqadeedii qof hebel baa haysatay hal igaga soo fujiyana amaanadu way adkaanaysaa waa idin hambalyeynaya marka talaabada ay wasaaradda maaliyadda iyo bangigu ku talaabsadeen waxaan dhihi lahaa laakiin hal lagu faafiyo dalka intiisa kale oo qorsho lagu soo cirib tiraayo isdabawadka warqadaha lagu xoojinayo daahfurnaanta lagu adkeenayo amaanada shacabka ha keento wasaaradda maaliyaddu si aan u wada shaqeyno iyo hay'adaha kale in hanti dhowrka halkan uu joogana way ila quman tahay حسابيه جود إنه يجوكتال كان وإلى قمنتاي دمان وزيردي وزارة مالية iyo gudoomiyaha bangiga inuu halkan joogo ila fiican tahay sababtoo ah intii naasa lagu aaminay ummadda waxa laga soo arooriyay in ay ilaalisaan hormuudna ka ahaataan isla xisaabtanka marka waxa aad u soo jeedinayaa in wasaaraddu iska bilowdo oo bangigu iska bilaabo oo hanti dhowrku iska bilaabo oo xisaabiyaha guud iska bilaabo idinku isla xisaabtama kadibna madaxweynaha iyo wasaaraha ku xajiya kadibna wasaaradaha kale ku xajiya kadibna dalka intiisa kala gaarsiiya isla xisaabtanku ma aha inaad dadka kale la xisaabtantaan idinku aadan isla xisaabtamina in waxan aan si daahfuran uga wada hadli karno kulligeena iyada lafteedu waa qayb dhaqan bedelka kamid ah musuqmaasuqu inuu xun yahay inaan ka wada hadli karno amaana inay tahay waxaan naloo dhiibtay inaan ka wada hadli karno dadka Soomaaliyeed inay na weydiinayaan canshuurtii ay inoo dhiibteen xagee geysan waxa soo dhame waa qayb kamid ah dhaqanka ugu dambeyntii qofka shaqaalaha dawladda u shaqeeyo oo 27 bisha markii la gaaro raba in uu mushaar helo bil walba wuxuu aaminsan yahay dhaqankii inuu isbedelay hadduu bil kamida mushaarkiisa waayo wuxuu aaminayaa dhaqanka hore in lagu noqday hadday taasu dhacdana ka fikiri maayo 20 ama 30 bilood oo mushaarka siisaan laakiin wuxuu ka fikirayaa ama ka fikiraysaa halka bil uu mushaarka waayo ama ay weysay waana xuquuq oo qofku kugu leeyahay qofkii halkan subax u soo shaqo taga oo 30 maalmood ku shaqeeya waa inuu mushaarkiisa helaa si uu mushaarkiisa u helo waa inaad ogtahay inta qof oo ku shaqeysa iyo dhaqaalaha aad haysato inay isla mid yihiin isla eg yihiin aaminaada shacabku nagu qabana asaas waxa uu ahaa isla xisaabtankana waxaa talaabada ugu horeysa ah annaga gudaheena sidaan
isula xisaabtano waa idin mahad celinaya waan idinku amaanaya waa idinku hambalyeynaya shaqada qabateen waxaan rajeynayaa in wasaaradaha kale iyo hay'adaha kale dawladda sida ugu dhaqsaha badan aad u gaarsiin doontaan hadii la yiraahdo waa mahadsantiin intaas aan ku soo koobay